daawadayaal waraysi gaar ah oo aan la yeelanay madaxweynaha Somaliland madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo mudane madaxweyne ku soo dhaw marka hore telefishinka Universal mudane madaxweyne waraysigii barnaamijkii madadaalada ahaa ee faaliyaha qaranka kula yeeshay toddobaadkii dhawaa wuxuu dhaliyay in la xiro xafiisyadii Universal TV ee Somaliland maxaad qoonsatay anigu waxaan ma qoonsan run ahaantii balse waxaa jirta aragtida bani aadamku ee soo jireenka ahay inay kala duwan tahay qaar ka mid ah xukuumaddeeda ayaa arrintaas qoonsaday waxaana jeclaan lahaa su-aashan inaad weydiisaan wasiirka warfaafinta oo ay ka timid xiritaanku dowladdii milatariga ahayd ee madaxweynaha uu ka ahaa madaxweyne maxamed siyaad bare allah u naxariistee ciddii tala siiso ama wax sheegto waxaa lagu eedeyn jiray inay tahay kacaandiid ama qarandumis wasiirkaaga warfaafinta wuxuu ku eedeeyey telefishinka Universal inuu yahay qarandumis ma la qabtaa 10 sano ugu dambeeyay madaxweyne aan ahaado ama yaanan ahaan waa fiirsanayay telefishinka Universal wuxuuna ka sheekeynayay ama aan ka daawanayay horumarka iyo dhaqdhaqaaqa Somaliland intaana kuma aanan arag wax qarannimada iyo shacabka Somaliland wax u dhameeya warkaas waxa uu ka yimid wasiirka warfaafinta waxaase Universal ka codsan lahaa inaanay nala barbar dhigin rajiimkii Siyaad Barre hay-adaha u dooda dimuqraadiyadda ee caalamiga ah kuwa u dooda saxaafadda xisbiyada mucaaradka ah ee Somaliland ka jira baarlamaanka Somaliland waxay cambaarayeen xiritaankii xafiiskii telefishinka Universal ee Somaliland ma ku adkaysanaysaa maxaa saxal ah arrintani waa arrin jirta cambaarintuna maalmaha waa ay socotay annaguna waa ogol lahay saxaafadda madaxa bannaan iyo asxaabta faraha badan balse waxaad moodaa in gacmo kale ay ku hojiraan oo ay ka faa'iidaysanayaan haddii ilaahay yiraahdana maraan dheereen arrintan waa xalin doonaa madaxda Universal iyo Somalilandna way ka heshiin doontaa dad badan ayaa qaban qaabinaya banaanbaxyo looga soo horjeeda caburinta saxaafadda iyo joojinta dhaqdhaqaaqyada xisbiyada mucaaradka ah haddii kacdoon shacbi bilowdo sidee uga hortagaysaa banaanbaxyada sharci darrada ah waxaanu leenahay oo noo xil saaran inay ka hortagaan ciidamada amniga ah waanuna ognahay in qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ay abaabulayaan sida xisbiga ucid waxaase uga diganaa inayna shacabka Somaliland aanay dhib u horseedin ciidamada amnigana waxa aan faraynaa inay fiiro gaara u yeeshaan dhaqdhaqaaqyada ay dadkaasi wadaan aniguna saxaafadda xorta ah saaxiib ayaan la ahay